السلام الله عليكم أخيارتا نلا سعوتا ميل كستوا دونيدا كجوكتان فاقدات ورarka caalamka iyo waliba qubanaha caawa waxaan idinku hayaa qodobo ay kamid yihiin madaxa hay'adda sirdoonka Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in dagaalka lagu la jiro dawladda Iran uusan noqonaynin mid dhammaan doona xitaa haddii heshiis lala gaaro dawladdaas oo ay Mareykanku isfahmaan waxa uu yiri ujeedada ugu dambaysa ee dagaalkaasi uu ku dhamaan karo waa in la bedelo nidaamka ugu sareeya ee dawladdaasi haddaba hadalkan xagee ka jeediya sideena loo arkaa warbixin xasaasi ah ayaan idinkaga hayaa qodobkaasi ciidamada hoggaanka ugu sareeya ciidamada sirdoonka Israa'iil oo caawa ku dhawaaqay isla wararkaasi haddii aan sii eego xubnaha ka tirsan xisbiga Likud ee uu hogaamiye ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa dhaleecayn kulul u jeediyay dawladda Masar oo ciidamadeedu ay tababar ka sameynayaan gacanka Siinaa waxay ku dhawaaqeen in ay ka baxeen heshiiskii Camp David ee labada dhinac ay galeen dhamaadkii 70-meeyadii qarnigii laga soo tagay taas oo muujinaysa hadda in mar kale xiisada u dhaxaysa Masar iyo Israa'iil ay cirka isku shareeri karayso madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump ayaa ku baaqay inuu soo gaaray codsi ka yimid dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran oo ku saabsan in ay doonayaan in si degdeg ah loogu furo marinka istiraatiijiga ee Hormuz isla markaana ay sameynayaan isbedel gudaha ah dhinaca Mareykankana waxaa laga soo sheegayaa cabsi inay ka qabaan in xaaladda wadanka Iran ay isku bedesho wax u dhigma dagaalkii qaboobaa oo saameyn ku yeesha dhaqaalaha guud ee wadankaasi hogaamiyaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in uu soo gaaray codsi ka yimid dawladda Iran oo ku saabsan in si dhaqso ah loogu furo marinka istiraatiijiga ee Hormuz iyana ay sameynayaan isbedel maamul oo gudaha ah inkasta oo hadalkan hal dhinac yahay haddana ma jiraan wax xaqiijinaya hadalkaasi oo la xiriira dawladda Iran ama beeninaya go'aanka madaxweyne Donald Trump uu sheegay in dawladda Iran ay gaartay loo soo gudbiyay madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dalka uu ku sugan yahay waa Iran ee marxalad burbur ah isla markaana ay si degdeg ah u codsatay dawladda Iran in Mareykanka uu dib ugu furo marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz Trump ayaa sheegay in codsigan uu yimid xilli ay Iran isku dayayso in ay dib u habeyn ku samayso yiri hoggaankeeda gudaha isagoo intaa ku daray in uu rumaysan yahay in ay awoodi doonaan in ay ka gudbaan xaaladan adag ay ku sugan yihiin haddii ay tallaabadaasi qaadaan marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz ayaa waxaa go'doomiyay dawladda Mareykanka dhinaca Iran maraakiibtii u socotay iyadoo xiisada wadankaasi iminka la leeyahay xagga maciishada iyo nolosha ayaa sii adkaanaysa dhinaca kale dawladda Iran ayaa la joojiyay shidaalkii ay dunida ugu waaridi jirtay iyadoo balaayiin fuusto oo shidaal ah gudaha wadankaasi ay ku xayiran yihiin isla markaana dhaqdhaqaaqii maraakiibta dawladda Iran ay hakad ku jiraan ilaa iyo hadda ma jiraan war rasmi ah oo cadeynaya sheegashada Trump ama beeninaya oo dawladda Iran ka soo baxay oo ku saabsan hadalka madaxweynaha dalka Mareykanka ka yimi ee saameynta abuuraya marka la joogo bariga dhexe hogaamiyaha hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Musa David Barney ayaa ku dhawaaqay in dagaalka lagu la jiro dawladda Iran uusan noqon doonin mid si degdeg ah ku soo gabagabooba isla markaana Israa'iil ay qorsheysay muddo dheer dagaalkaasi in lagu jiro ilaa inta isbedel lagu sameynayo kacaanka wadankaasi gacanta ku hayana dagaalkaasi uu soconayo hadalkan ayaa waxa uu jeediyay maanta xilli munaasabad lagu abaalmarinayo la qabtay waxana uu sheegay in xudunta cadowga Israa'iil uu ka warhayo isla markaana ay u duseen meelo hoose taasina hadda ay ka muuqato xaaladda Iran ay ku jirto waa sida uu ku tooqay madaxa hay'adda sirdoonka dibadda Israa'iil ee Mossad David Barney ayaa sheegay in dagaalka lagu la jiro Iran uusan dhamaan doonin ilaa laga gaaro isbedel nidaam oo weyn oo ka dhaca wadankaasi oo meesha looga saari karayo buu yiri nidaamka kacaanka hadalkan ayaa waxa uu jeediyay munaasabad ama uu ka jeediyay munaasabad Mossad ay ku maamuusaysay howlgallo iyo mashruucyo sirdoon oo la fuliyay sida ay baahisay warbaahinta Israa'iil oo ku jira wargeyska weyn ee Dico Dahranood oo sida weyn uga faallooda arrimaha gobolka bariga dhexe Barney ayaa sheegay in qorshaha dagaalka uu ahaa mid horey loo diyaariyay isla markaana la filayo in uu sii socdo muddo dheer xitaa kadib xabad joojin kasta oo suuragal ah waxa uu tilmaamay in Mossad ay tahay
موساد هشام ويري حق سردون أو هير صراع استراتيجي iyo waliba khibrado ay ku dheehan yihiin waxaana uu tilmaamay in la helay xudunta qarsoon ee cadawga isla markaana ay muujinayso oo yiri awoodda cusub ee howlgalla casri ah oo dalal kala duwan ka dhacaya sidoo kale Bernie ayaa sheegay in hay'addu ay isbedel weyn ku samaysay qaabkeeda shaqada iyadoo guda gashay oo yiri doorkii hore ee howlgalka qarsoon ee u dhaxeeya dagaalada kana mid noqota hay'adaha firfircoon ee sida weyn uga shaqeeya xilligan guud ahaan dunida isagoo munaasabadaasi si weyn hadalkiisa ay warbaahinta maanta u hadalhayaan isbedelkan ayaa waxa uu sheegay inuu ka muuqdo howlgallada ay ka fuliyo Iran iyo sidoo kale Lebanon isagoo xusay in lagu guuleystay horumarinta awoodda tiknoolajiyadda sare abuurista waxyo cusub iyo adeegida hal abuurnimo heer sare ah oo kala duwan Bernie ayaa sidoo kale sheegay in hay'addu ay si dhow ula shaqeyso oo yiri ciidanka kala duwan ee nidaamka gaar ahaan howlgallada ka dhanka ururada dagaalka kula jira dowladdaasi ama nidaamkaasi ee Lebanon jooga ugu dambeyntii waxa uu sheegay in hay'addu ay fulisay weerar ka dhan ah bartilmaameedyo xasaasi ah oo ku yaala gudaha caasimadda Tehran isla markaana ay fulisay qorshayaal iyo weeraro iyadoo sidoo kale sheegtay buu yiri in ay beegsatay shakhsiyaad muhiim ah oo ka tirsan howlgalkii la bacsanaya dagaalka lagula jiray sida uu ku waramayo majalada The Axios ee ka soo baxda dalka Mareykanka waxa aad isku sii taraya walaaca ka imaanaya gudaha wadanka Mareykanka oo ku saabsan dagaalka lagula jiro dowladda Iran haddii uu xaalkiisa sidan sii ahaado in uu saameyn ku yeelanayo siyaasadda dibadda mustaqbalka dhaqaalaha iyo geedi socodka dowladda Mareykanka ee hogaaminta caalamka sidoo kale shacabka Mareykanka ayaa sidoo kale la leeyahay waxa ay arintani ku soo aadaysaa iyadoo la filayo in bisha November ee sanadkan dalkaasi ay ka qabsoomaan doorasho kala duwan oo heerar kala duwan leh warbixin uu daabacay majalada wararkeeda Axios ayaa muujinaysa inay jirto cabsi sii kordhaysa oo gudaha Mareykanka oo ku saabsan in xaaladda ka dhalanaysa Iran ay isu bedelayso dagaal qabow oo aan horay loo arag kaas oo dowladda Mareykanka haddii aanay gelin heshiis siyaasadeed lagu sii socon karo warbixinta ayaa tilmaamaysa in marxaladda hadda ay si weyn ugu eg tahay xaaladii loo yaqaan dagaalkii qabowba iyadoo labada dhinac ay ku sii jeedaan baa la yiri jid xaniban oo aan la aqoon meesha loo mari karo isla markaana aysan muuqan wax calaamad ah oo muujinaya dhamaadka colaadan ilaa iyo hadda dhinacyadana midba midka kale uu ka sheeganayo guulo ballaaran ila xog ogaala oo aan la shaacin ayaa sheegaya inay jirto walaac ah in Mareykanka uu galayo xaalad dheer oo cakiran taasi oo ay tahay dagaal buuxa iyo heshiis rasmi ah atoona in uusan wali helin taasi oo adkeynaysa baa la yiri kartida xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale ee wadankaasi dunida u awoodda badan ee haatan dagaalka kula jira dowladda Iran sida ay warbaahintu xustay xaaladan ayaa imaanaysa xilli ay ka harsan tahay baa la yiri qiyaastii 6 bilood doorashooyinka dhexe ee Mareykanka ee la qorsheeyay 3 bisha November sanadka 2026 kuwaas oo la doonayo in ay lagu soo dooranayo baa la yiri dhammaan 345 kursi oo aqalka wakiilada ah iyo 35 kursi oo ka tirsan 100 kamid ah kuraasta aqalka sanadka ee wadanka Mareykanka warbixintu waxay sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu wajahayo laba doorasho oo kala duwan oo ah in wada hadal uu wax ku soo dhameeyo iyo waliba colaadan inay noqoto mid dheer oo aan xal degdeg ah laga gaari karin ila wareejadu waxay tilmaamayaan in Trump uu yahay mid niyad jabsan balse si dhaba u fakaraya isla markaana uusan rabin adeegsiga xoog military balse sidoo kale uusan diyaar u ahayn in si fudud uga laabto mowqifkiisa ka dhanka dowladda Iran colaadda bilaabatay 28 February 2025 markii Mareykanka iyo Israel ay weerar ku qaadeen Iran ayaa sidoo kale Iran waxay ku jawaabtay weerar kulul hasaatee heshiis xabad joojin ayaa la gaaray 8 bishan aynu ku guda jirnay April sanadka 2026 markii dowladda Pakistan ay qaadatay dhowr dhaxaadina hasaatee dowladda Mareykanka ayaa mar kale ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac oo ay ka codsatay dowladda Pakistan mas'ala oga ilaa iyo hadda goorta xabad joojintaasi ay dhamaan karayso xiisad cusub ayaa ka dhex bilaabatay nidaamka Israel iyo dowladda Masar kadib ciidamada dalka Masar markii ay bilaabeen gacanka Sinaa inay ka sameeyaan
dowladu si weyn u soo jeedatay dunida. xildhibaanada qaar ee ka tirsan xisbiga Likud ee talada haya ee uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu ayaa tilmaamaya in tani ay ka hor imaanayso heshiiskii Camp David ee dhamaadkii dabayaaqadii toddobaatmeedii ee qarnigii tagay la galay. xildhibaanada ayaa soo jeedinaya in loo baahan yahay nidaamkaasi in uu tallaabo degdeg ah qaado. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Israel ee kaniisad loo yaqaano ee la yiraahdo Amjay Halevi oo ka tirsan xisbiga Likud ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa cambaarayay ciidamada dalka Masar kadib markii ay bilaabeen tababaro militari oo ka soconaya gobolka Sinaa inta u dhaxaysa 26 ilaa 30 bishan Abriil. xildhibaankan ayaa sheegay in tallaabadan ay ku jiraan baaliyiri rasaas nool oo ay ku socoto meel ku dhow xadka labada dhinac, isagoo tilmaamay inay muujinayso xaalad walaac leh oo ka baxsan tababar ciidan. waxa uu ku eedeeyay Masar in ay meesha ka saarayso heshiiskii Camp David ee labada dhinac ay galeen sanadkii 1979. Halevi ayaa waxa uu ugu baaqay ciidamada Israel in ay bedelaan qaabka ay u joogaan xadka koonfureed, isla markaana uu dalbaday in nidaamkaasi Israel ay si adag uga jawaabaan wixii uu ku tilmaamay xadgudubyada. dhinaca kale, warbixin Israel ayaa sheegaysa in tababarada Masar ay qayb ka yihiin howlo militari oo caadi ah ama la xoojiyay, isla markaana lagu fulinayo iyadoo la ilaalinayo habraacyada isku duwidda amniga ee heshiiska Camp David. ilaa iyo hadda ma jiraan wax rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Masar oo ay kaga jawaabayso eedaha dhinaca Israel ka imaanaya. si aad xogtan iyo kuwa kale aad u heshaan barnaamijyada oo noo sii socon doona, fadlan halkan indhaha ku haya oo mahadsantiin.